annaga waxaan madaxweynaha ka keenay boqolkiiba 80 wixii chapter 4 lagu qoray oo la bedelay adduunkana ma jiro Soomaaliya kaliya waxay ahayd wax unique ah in parliamentary system la haysto ana waxaan rajaynaynaa xisbiyada inay noqdaan wax jihada siyaasadda xisbiyadu inay noqdaan wax ummadda Soomaali daafadaheeda ilaa xabna inta u dhaxaysa ma aha qof aad taageersantihiin waa waxa wax ka leedihiin waa urur wax ka dhisateen kan meesha hoggaanka haya ilaa iyo kan kale idinka wuxuu ku yimid yani codkiina runtii aniga iyo siyaasiyiinta kale ee hadda maanta qaatay ururka shahaadiisa waxaan uga mahadcelinaynaa guddiga soo dhaweynta iyo habsamida naloo soo dhaweeyey iyo habsamida aan shahaadada u qaadanay runtii wax weyn weeye waa ku faraxsannahay in maanta howl aan ku taamaynay hadda muddo in xisbiyadan la sameeyo ee maanta noo soo gashay inaan felicitationkii iyo shahaadadii qaadano waxaan rabaa marka hore inaan mahadceliyo madaxweynaha iyo dowladdiisa runtii muwaafaqadii ay nala galeen iyo is-afgaradkii ahaa in systemkii parliamentary systemkii ee awal dastuurka lagu bedelay dib loo soo cesho oo dee system dalkan iyo dadkan yaqaanay ee ku soo caanamaalay in mar kale dib loo soo cesho si dadku ay constitutional crisiskii laga cabsanayay inuu berrito yimaado meesha looga saaro madaxweyne presidential system maalin waa gaari doonaa markay institutionska maxkamadaha civil society-ga miidiyada ee si fiican u dhismaan waa gaari doonaa in presidential system aan gudubno laakiin maanta weli annaga iyo dowladda iyo madaxweynuhu waxaan soo garanay in sideedii lagu wado oo systemkii parliamentary la soo celiyay taas waxay iridda u furtay in aan maanta registrationkan samayno waan ururadeennii diiwaan gelinno si aan uga qayb qaadano doorashooyinka soo socda ee ah degaan state iyo federaalba saddex wax oo aan isleeyahay muhiimay u tahay xisbiga iyo ururada siyaasadeed ayaan rabnaa in ay hirgalaan mid waxa weeye parliamentary system ilaa carta ilaa maanta waxaan haysanay system parliamentary ah oo aanan xisbi ku salaysnayn adduunkana ma jiro Soomaaliya kaliya waxay ahayd wax unique ah in parliamentary system la haysto aan jirin xisbi taas waxay political foundation wax la dhaho asaaskii siyaasadeed ee loo baahnaa in lagu saleeyo system iyo dowlad dhis ayaa meesha ka maqnaa waxay la tahay hadda ururadan waxay suuro gelin doontaa asaaska siyaasadeed in si fiican loo dhigo yani loo sameeyo nidaam hadda waxay ka dambeeya aan la isku qabsan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo aysan dhicin wax jijiida sababtoo ah xisbiga meeshaas aqlabiyad hela keenaya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dooran doona ama hadday noqoto in la isbarbar yani aan la kala badnaanna waxaa keeni doona ra'iisul wasaaraha negotiation ka yimid xisbiyada arrinta labaad aan is leeyahay daawi u tahay waxa weeye waa siyaasadda la shakhsiyeysan siyaasad ku dhisan shakhsiyaad taa waxay keentay xoogaa in identitygii Soomaaliyeed hoos aado qabiilkii iyo inay kor soo aadaan ana waxaan rajaynaynaa xisbiyada inay noqdaan wax jihada siyaasadda xisbiyadu inay noqdaan wax ummadda Soomaali daafadaheeda ilaa xabna inta u dhaxaysa yani dadku platform u noqda ay ku aragtidooda iyo dareenkoodaba ay ku maaragtay sheegaan dowlad dhiska iyo dal dhiska meesha ugu wax ku wajahan dowlad dhiska iyo dal dhiska midda saddexaad aan is leeyahay aasaasay u tahay ururadan hadda baan sameynay waxa weeye waa dhalinyaradiina wey dalkan boqolkiiba 80 waxaa la yidhi waa dhalinyaro idinkii horta dhaxalreeb idinta annaga iyo Sheekh Xasan iyo waxa odayaal kale meeshaan ku jira siyaasadda intaan ku sii jiri doono waa yar tahayba laakiin idinkii dhaxalreeb idinta waxaa la rabaa intii maanta wixii ka dambaysa dhihi lahaydeen shakhsiyadan taageersannahay waxaa leeyihiin xisbigan aan ka tirsannahay taas waxa weeye wax ka leedihiin waay ma aha qof aad taageersantihiin waa wax ka leedihiin
وأورا وحكد ستين كان ماشي هجان كهاية إلا إيه كان كله إلينك وحكي مد يعني عدكينا إيوه كرسون أساسا مركوا واحد ليدي موي إلينك إذا حلال إذا انتهي وحرنا إلينك اللي سيدنا خقرب قادتان أورنتي آت يعني باشان نقلوا لكتان نقضياشن هدي لا إله مركوا مهتنتين